بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحى بوقشة كوي مجال الجوهر وكسرت دورشة جراح شعبك جدي حقيقة رادينا وككوبان جدي فدرال كهرجنت دورشة كتبان يو جدي قرنك أمنك دورشوينك وأي كسرت قدوميها جنرال حامد يقدم كحكا جنرال جافو sidoo kale waxa arinta xaqiiq raadinta iyo baaristaas u jooga xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Maxamed Ali Daahir sidoo kale waxa socdo General Ali Gaab waxa sidoo kale shirkan maanta aan halkaan ku qabanay arintaas looga hadlayo jooga gudiga dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudiga xalinta khilaafaadka wakiiladooda u jooga caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle ujeedada socdaalkan ayaa waxa ay tahay sidii xogogaal ay ugu noqon lahaayeen qaybahaas oo dhan dhacdadii ka dhacday 18kii bisha 11 November 2016 magaalada Jowhar xarunta doorashooyinka taas oo saameyn ku yeelatay in hakad la geliyo doorashadii gudigu wuxuu warbixino ka qaadanayay arintaas la xiriiro hay'adaha ku shaqada leh doorashooyinka ee gudiga federaalka gudiga dawlad goboleedka gudiga xalinta khilaafaadka sidoo kale hay'adaha amniga ee goobjoog u ah arintaas gudiga waxa kale oo maanta u yimid sidoo kale in oo qorshaha amniga ee goobta doorashada qiimeyn ku sameeyo iyo dib u eegid qorshaha guud si loo xoojiyo amniga ee goobta doorashada sidoo kale waxa ayana gudiga maanta u yimid in uu la kulmo dhammaan musharaxiinta golaha shacabka doorashada u yimid si loogu akhriyo xeer anshaxa doorashada looguna cadeeyo waxyaabaha ka reeban oo keeni karo in taageerayaashooda ama ciidamo ayaga la socda dhibaato haday geystaan cawaaqibta ka dhalan karta si cad loogu sheego waxa ayana kamid ah ujeedada maanta loo yimid in arrimaha doorashooyinka waliba kuraastooda ay maaragtay tartankoodu aad u adag yahay in aad maaragtay feejignaan dheeriya la siiyo waqtiga doorashada la qabanayana sidoo kale aad looga fikiro inay habeenkii aysan la gelin doorashada oo lagu ekeeyo maalinimo arrimahaas oo dhan oo aan sheegayno waxa ay qayb ka ahaayeen sidoo kale in taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda oo madax ka ah gudiga qaranka ee amniga doorashooyinku inay iyaguna xoojiyaan doorka ay ka qaadanayaan ciidamadaas amniga iyo sidii looga ilaalin lahaa in shaqaaqa dambe ay ka dhacdo sidoo kale waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed in arintaasi baaristeeda ay socoto meel fiican ay marayso markii ay ka soo baxdo natiijo baaristaasna gudiga doorashooyinku in uu qaadan doono go'aan ku aadan wixii ka soo baxa baaristaas oo hadda aan la hordhacaynin go'aankaasna waxaan soo saari doonaa mar aan fogeyn baaristuna hadda waxay maraysaa meel fiican iyo gabagabo waxaan kale aan la wadaagaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan ku bogaadinayno gudiga dawlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadban iyo gudiga xalinta khilaafaadka dawlad goboleedka Hirshabeelle in ay iyagoo waqti gaaban dhisan ay ku guuleysteen in ay 9 kursi doorashadoodii si nabadgelyo ay ku qabtaan midka ay wax yar ka dhaceen oo yahay midka 10aad arinteena la xakameeyay laguna guuleystay in lagu soo celiyo caadi amniga magaalada hadda waxa loo jooga kaliya ay tahay ka hortag in sidoo kale ay soo noqon laakiin xaaladdu ay caadi tahay mar dhawna ay dib u bilaabi doonaan doorashooyinkoodii isma waqti aan fogeyn si loo dedejiyo doorashaduna ay waqtigooda ugu dhacdo waxa kale oo aan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed in aan fursadan anagu uga faa'iideysanayno
in doorashada guud ahaan dalka ka dhacday ay meel fiican marayso iyadoo oo tirada golaha shacabka ee dalka doorashadii dhacday loo doortay inay xildhibaano ka noqdaan golaha shacabka ay tiradoodu gaarayso 112 waxaa sidoo kale ayadana ah guul waan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno in 20 kamid ah 112 kaasi ay yihiin dumar ku guuleystay inay maaragtay doorashooyinka ku soo baxaan waxa ayadana sidoo kale aan la wadaagaynaa dadka Soomaaliyeed in 43 xildhibaan oo senator ah ayana loo doortay aqalka sare marka la isku daro labadoodu inay noqonayaan 155 xildhibaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka maanta in ay dad rasmi ah oo la doortay ay yihiin waxaan fursaddan oo kale uga faa'iideysan doonaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan haddii doorashadu ay dhacdo wax isdaba marina ama qalaanqul ama dhibaatooyin waxaa jira guddiga xalinta khilaafaadka oo doorashadu marka ay dhamaato kaysaska qaarkood oo hadda aanan carabaabaynin aan hordhacaynin ay dib u fiirin doonaan oo arrintoodu ay aad iyo aad ay uga muuqato in aan la dhowrin hanaankii doorashadu inay qaadan karaan go'aano ah inay baabi'in karaan kursi doorashadiisii dhamaatay taasuna waxaan u sheegaynaa dadka in aysan isdhihin doorashadii waa dhacday wax walba la iska sameeyay cadaalad uma dhicin cadaaladii gacantii baa lagu hayaa waxaa gacanta ku haya guddiga xalinta khilaafaadka wuxuuna u taagan yahay inuu go'aano ka gaaro kaysaska ama maaragtay arrimaha doorashooyinka ee aysan loo marin hanaankii doorashada u qoraa ama maaragtay isdabamarin badan ee ka dhacday ama waxyaabo kaleeto oo wax u dhimi kara doorashada ku kalsoonaanteeda waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto u mahad celiyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo ku-xigeenadiisa oo arrintaas baaris u soo baxay ayaga iyo iskaashanaya ciidanka booliiska sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qaranka ee amniga doorashooyinka oo gacan weyn arrintan naga siiyey amniga doorashada inay maaragtay si habsami uga dhacdo meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya iyo sidoo kaleeto in aan ka sugayno in ay noo soo gudbiyaan natiijadaasna ay noqon doonto mid aan go'aanka ku qaadano insha Allah taala wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh